kusoo dhawow Qaraax Tube fadlan subscribe leh waxaad ka helaysaa macluumaadkii ugu dambeeyay kubadda cagta iyo sheekooyin kale dhammaan asxaabta la socda channelka Qaraax Tube waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay saaki suuqa kala iibsiga ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa dalab saddexaad ka gudbisay ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Chelsea William oo 29 sano jir ah 55 milyan ayuuna dalabkan gaaraya Chelsea ayaana laga sugayaa jawaabta Sky Sports ayaa sidaas warinaysa Real Madrid waxay isku diyaarinaysaa in 112 milyan ay ku bilowdo wada hadallada ay la galayso Chelsea kuna aadan Eden Hazard 27 sano jirka Belgiumka ka ciyaara ayaa laga yaabaa inuu noqdo bedelka Cristiano Ronaldo Evening Standard ayaa sidaas warinaysa Chelsea qadkeedii dhexeesaska Fabregas oo 31 sano jir ah ayaa sheegay inuu kala hadlay Hazard wax ku saabsan mustaqbalkiisa 27 sano jirka reer Belgium wuxuu sheegay inay suuragal tahay inuu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Real Madrid Paris Saint-Germain madaxweynaheeda Nasser Al-Khalifi ayaa u duulay São Paulo si uu la kulmo Neymar aabihiisa waxaa laga yaabaa Neymar in lagu qanciyo marka la sii joogitaanka kooxda kubadda cagta PSG 50 milyan ayaana laga yaabaa in la siiyo sanadkii Marca ayaa sidaas warinaysa kooxda kubadda cagta Everton 22 milyan ay ku doonaysaa 25 sano jirka Barcelona difaaca dambe ka ciyaaro Lucas Digne kaasoo tababare Marco Silva warka mid kamid ah ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxdiisa caawin kara weeraryahanka kooxda Arsenal ciyaaryahanka lagu magacaabo Chuba Upcom ayaa laga yaabaa in 2 milyan ugu laabto kooxdiisa Belgiumka ka dhisneed Saint Talante oo doonaysa inay xidigaas soo qaadato Inter Milan oo 25 sano jirka Argentineska Mauro Icardi laga yaabo inay Real Madrid ka iibiyaan sababtoo ah kooxda kubadda cagta Madrid ayaa doonaysa hadii ay waayaan ciyaaryahan weerarka ka ciyaara inay soo qaataan Icardi waa hadii Benzema uu ka tago kooxdaasi Roma ayaa 31.3 milyan ku doonaysa boqdo ciyaaryahankeeda xidiga la yiraahdo Malcom oo 22 sano jira oo koox badan ay indhaha ku hayaan madaxda sare ee kooxda kubadda cagta Munich Karl-Heinz Rummenigge ayaa doonaya James Rodriguez oo 27 sano jir ah inuu si toos ah u soo qaato maadaama 2 sanadood oo ama xidigan hal sano ay kaga harsan tahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa doonaysa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Juventus Miralem Pjanic oo 28 sano jir ah kaas oo ay doonayaan inay soo qaataan AC Milan ciyaaryahankeeda Nicola Kalinic oo 20 sano jir ah ayaa diiday bilada dahabka ee kaga timid xulka qaranka dalka Croatia oo galay booska labaad ee koobka adduunka 2018 maadaama uusan ciyaarin koobka adduunka lagana soo buriyay intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda iyo hadalhayntii ugu badneed ee kubadda cagta waad ku mahadsantahay daawashada videogan fadlan ha ilaawin like iyo share kadibna inaad subscribe mahadsanid